waxa uu aad u taabtay sheekhu saaka wada warqabteen intii hore intii dambaba oo mobilku aad ugu dheeraaday oo maanta aafada runtii haddii xagga xun loo adeegsada ah waxa uu sheekhu ka hadlay tarbiyadda awlaadda iyo awlaaddeena inaan rabbayno waxa uu nagala hadlay xagga waqtiga inaynu ilaashanno oo waqtigeena ka faa'iideysano waxa uu sheekhu si fiican iyadana ugu tuntuunsaday inaynu iska ilaalino ilaahay hay naga dhowray xanta iyo waxyaabaha la xiriira waxa uu hadalka sheekhu aad buu runtii meelo badan u taataabanayay ku gabagabeeyey adduunyadana inay safar tahay isla markaana inaynu ka faa'iideysano una qaadanin inaynu abadal aabaad ku waarayno laakiin inaynu ka guuri doonno tabaabushaysanno khaatimada ilaahay inuu wanaajiyo waxaynu walaalayaal sheekh insha Allah dhowr su'aalood oo intii imika nalaga soo gaarsiiyay ama intii maalmaha naloo keenay ah kale waraaqa kala waxaan u maleynayaa inay ku akrina kuwan la mid yihiin waanu isu celcelinay marka insha Allah sheekh ayaan weydiin doonaa su'aasha koobaad sheekh maxamed jazakallahu khayran awlaadu marka ay qaan gaaraan inan iyo inanba waalidka miyuu oran karaa xilkoodii uu iga baxay maadaama ay qaan gaareen wax markaasi iga saaran haba yaraatee ma jirto oo aan maxay heeday dambi aan ku leeyahay ilmahaas wax dambi aan ku leeyahay waa su'aasha koobaad su'aasha labaad gabadhu ma ka codsan kartaa ninkeeda furiinkaasi amaha ku keeno maseer iyo hinaase amaha ku keeno waxyaabo kale gabadhu ma ka codsan kartaa ninkeeda oo ma oran kartaa ifur waliba gaar ahaan marka ay gabadhu hinaasto ma bannaan tahay gabadhu inay akhrisato adkaarta waqtiga caadada sunniga ay ku jirto ama dhiigga dhalmada iyo waxyaabaha la halmaamo ma ii bannaan tahay in aan bixiyo biilka ninkayga inaan ku daro xoolo aan anigu shaqaystay dabeeta aan isku bixiyo oo aan gebiga reerka aan ka wada biiliyo iyadoona markaasi kala garanahayn inaan u kala badiyey kuwii xaqa u lahaa iyo kuwaan xaqa u lahayn oon maalkaygii isku daray biilkii odayga su'aashan kalena iyaduna waxay odhanaysaa ninkayga ma ka saamixi karaa meherka haddii uu dhintay ma ka saamixi karaa ma ii bannaan tahay bay tidhi in aan ninkayga anigoo maal weydiisanaya badanka haddaan wax ka codsanno nama siiyaan laakiin marka aan si kale wax ugu sheegaa buu isiinayaa haddaan iminka idhahda cid baa xanuunsanaysoo kale ama cid baa dhibaataysan waxaa laga yaabaa in meel aan uga baahnaa $5 oo kale inaan ku idhahdo 20 baan u baahanahay ama 30 baan u baahanay 30 kaana haddana hadhow guriga aan ku celiyo oo waxyaabo gurigu u baahan yahay aan soo siiyo marka ninkiina beentaasi u sheego aan xoolaha kaga qaado haddana aan isagu dib ugu soo celiyo gurigii ma ii bannaan tahay ilma yar oo ayaa iga dhimatay inan baa iga dhimatay iyadoo waqtigii oo saqiirtay aabaheedna waxba kama dambaynin marka ma u qali karaa qalliinki ma u samayn karaa muxuu ahaa ilmaha yar qalliin markaasi ma u samayn karaa xoolihii ma uga qali karaa caqiiq buu jeeda waa wanqalkii buu jeeda ma u wanqali karaa salaada iyo soonka haddii waqtigii aan hore aan qaan gaarin in badan aanan soo soomin in badanna aanan soo salaadin laakiin imika aan wax fahmay maxaan salaadaydii beriga hore iga tagtay iyo soonkaygii berigii hore iga tegey ayaanan waxba fahansanayn maxaan imika sameeyaa walaalkayga baahan ama walaashayda baahan sakada ma siin karaa haddii ruuxa maydkaa la yidhaahdo ruux lagu yidhaahdo cafi oo uu cafin waayo ruuxaa dhintay ma lagu leeyahay dayntii ma lagu leeyey kan cafi waayena haddii uu cafi waayey dembi ma qaadanaya su'aasha ugu dambaysa laba su'aalood baa ugu dambeeya ma ii bannaan tahay in aan maalka agoonta aan gacanta ku hayo in aan sadaqo ka bixiyo su'aasha ugu dambaysa waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan waqtiga munaasabaadka ama arooska ama xafladaha gaarka ah ma ii bannaan tahay inaan ka baacushtareeyo oo aan ka shaqaysto xaqa carruurtu miyuu iga dhacayaa xagga tarbiyadooda iyo tilmaantooda maya waayo ubadku dee waa aayaheennii baynu soo nidhi xataa hadday waaweynaadaan mar walba taladaadii waad ku leedahay iyo tilmaantaadii hadday qaan gaadhaan haddii ay guursadaan ma ka hadhaysa waa naftaadii weeye waa jidhkaagii waslad kaa mida weeye
quu anfusakum wa ahliikum naara ummadda iimaanka lagu lahaa weero naftiin iyo ehelkiin naar ka badbaadiya waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha waxaa soo daliili waxay farayaan waqti laguma qaydin waxa weeyaan kama hadhaysid waad la nooshahay wanaagaanaad kula dadaalaysa ninkayga ma weydiisan karaa furiin sabab la'aan waa xaaraan furiin anaa inaad hinaastay riisan iyo sabab noqon mayso si kale wax u weydiiso oo wada xaalo xaqaaga u raadso laakiin reerka burburiso waa dembi shaydaanna waa u adeegtay nebiguna uu ka diga ruux kasta oo dumar ah oo ninkeeda furiin weydiisata sabab la'aan jannada udgoonkeeda waa ka xaaraan waa reer bay naga dumisay markay reerkii dumiso iyada xaggee u kacaysa bannaankana istaagaysa odaygiina bannaankaasu istaaga ciyaalkiina suuqa yaaceen meeshii way kala dhaqaajisa reer isku habaysan oo bulshada ka mid ahoo lagu soo hagaagayo loo hoyanayo la tirsanayo ahaa shaydaan bay u adeegtay shaydaanku shaqooyinku qabtay ugu muhiimsana waa inuu reer dumiyo marka weligaa iska ilaalinkuna maaha inuu furiinka ku goolaaftamo oo dhaa waxaa haddaad samayn weyda waan ku furi siday dumarkeennu in badan sameeyaan inay iyaduna kalarka qabsatay tidha ama waxaa yeel ama ifur waa xaaraan goortay odhan karta ifur waa mar raja la'aanay tahay oo xaqeedii dayacmay ay sabri kari weydayna ruuxa dumar yihiin waa su-aasha saddexaad adkaarta way akhrii kartaa wakhtigay dhiigga dhalmada iyo caadada leedahay adkaarta masaa'iga ama sabaaxiga way akhriyaysa qur-aankunbaa markaa culimada qayb ka mida ay leeyihin ma akhriyayso ama kitaabka ma taabanayso laakiin dikriga inay akhrida aad bay muhiim ugu tahay wakhtiga aanay cibaadaysanayn shayaadiinta soo weerara iyo jimanka ruuxdeeduna way daciiftaa ilaa waa qofaan daahir ahayn marka waa lagama maarmaan wakhtiga subaxdii iyo galabtii iyo habeenkii markay seexanaysaba inay dikriga aad u badiso carabkeeda aanay ka dhigin ninka biilka uu siiyo ma maamuli karaa haddii uu meesha aad geynaysa raalli ka yahaa laakiin haddii aad ogtahay ninkaagu halkaa haddaad geyso inuu karaahiyaysanayo oo aanu kula doonaynin ma xadayso ila waad ka xadaysaa markaas xatooyada xaaska lama ogola inuu isagu ku xado iyo in iyada xado macnaheedu waxa way maxaad uga qarinaysaa hadday dantii reerka tahay dee ku qanci oo ka dooda waxaad leedaha waxaan iyo waxaan saas weeye halkaasuu ku habboon yahay aniga aad ii dhiibtay sidaasaa inoogu fiican isaguna ha ka dooda isqanciya laakiin waxa la yidhi nin hilaab xum inuu wax qabsanayaa la moodaaye maxaa ku kalifayaba haddaad dantiisa iyo tii ciyaal ka fikirayso oo kugula qanci waayo iska daa meherka ninkaygoo dhintay ma ka saamixi karaa waad ka saamixi kartaa ajri aad u weynna waad leedahay ninka been ma u sheegi karaa si aan lacag siyaada uga qaato oo markaa ama aan sadaqa uga bixiyo ama carruurta uga bixiyo ama reerka uga dhiso maya waa xaaraan beenta waa xaaraan waxaana la yidhaahdaa anniyatu alxasanatu laa tubariru alxaraam niyadda wanaagsani xaaraanta kuuma xalaalayso haddaad iminka lacag iska qaado oo aada laaluush ku qaado oo aad tidhaahda masaajid baan ku dhisaya masaakiintaan siinaya mushkilad ma laha bay ku leeyihin dee waaba laaluushay anigu miyaan cunayaa waxaan isoo galay ribadan isoo gashay masaakiintaan siinaya odayga intaanaan jeebkiisa kala baxay ama isagaba beentaan u sheegan ka qaado dee maanaa cunaya ciyaalkiisaan galni aqalkaan ku qurxinayaa meel kale maan geynin niyaddaa wanaagsani xaaraanta kuuma xalaalayso oo haddaad doodo aad tidhaahdo sawtii xaaskii abi sufyaan ee hinde la odhan jirayba nebiga ku tiri ninkayga abi sufyaan waa bakhayr ee biilka maka yara kordhistaa xoolihiisa haddaad kaa soo dariishato waa xaaladaha qaarkood oo aan joogto ahayn wixii wax joogtaa maaha waa marmarka qaarkood oo duruufi timaado oo qofka dumaree duruufi ay ku timaado laakiin haddaad is tidhaahdo beenta joogto ka dhig waxaa dhacaysa mahmaadii soomaalida odhanaysa beentaada hore runtaada dambay dishaa markaa wuxuu ku odhan doonaa marka dambeda runta sheegaysana inaga daa cishadii wataad beenta ii sheegtee si kale haddaynuu dhigno sirtaa fahma ruuxa dumara iyo ninkeeda arrinka u muhiimsanay ku wada socdaan waa kalsoonida iyadana wuu ku kalsoon yahay nafteedu inay cafiifato tahay qof dhowrsoon oo qasnad isaga u ah oo run sheeg ah oo dantiisa iyo tacaruurta haysa
intaa markuu aaminsan yahay warkeedu waa dhan kalsooni buu ku qabaa iyaduna ninkeeda nin cafiif oo dhowrsoon inuu yahay oo runlowa oo u dadaalaya kalsoonida marka ay qabtana labadii qof way wada joogayaan oo yuhuun bay leeyihiin laakiin hadday kala shakiyaan dee way kala ololeysanayaan waana kala urursanayaan isna wuxuu leeyahay imikay beenteedii soo xambaaranaysaa way kaa xooleysanaysaa iyana waxay leedahay beenihiisii iyo balaadiisii buu wadaayo inuu dahabkaaga xalaalaaba laga yaaba iska ilaali warkiisii buu ka qarsanayaa midibaka kale xokayn iyo waxaana isu hayn qofkii madaxda ahaa waa qasnadii qofkeed bay isu haayeen marka sirta qoyska ee sacaadada iyo macnaha samaysta waa inay isku kalsoon yihiin haddii kalsoonidan waxyaabaha dhaawaca beentana ka mid ah marka beenta iska ilaaliya isku day ninkaaga inaad la doodo oo aad tidhaahdo walaal waxaa waynu u baahannahay ma heli karaysaa hadduu idhaahdo haa dee halkaa laakiin laguma bixinayo oo halkaasi munaasib ma ahee dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo baahi ahaan kuma habboonee dee inaga daayo aan kala horraysiino ila waa taliyihii reerka dee waa yahay dheh oo markaa waa in la doodo la isqanciyo in la isxado ama been la isu sheego meesha qoyska ma qabato arrintadu waaweyn maaha walqasha iyo arrinteeda xaaska laguma la walqasha odaygunbaa lagu leeyahy eeg walqashiibaa odayga u taalla culayska la saaray kii nin la odhan jiray u fiirsado walqashi isaga u taallaa meherkii uu ku siinayna isaguu yaalla masruufkaagiina isaguu yaalla kii carruurta iyo kii martida magtiina isaga u taallaa qaadhaankii guud waxallo waxaasoo dhan ninkuu saaran yahay iyadu haddii ay bixiso sunnay u noqon laakiin laguma leh faralyadii hore tegay maxaan ka yeelayaa waad soo qallaynaysaa salaada waad soo qallaynaysaa soomka waad soo qallaynaysaa sakadii xajka waa sidoo kale wax kasta oo faralaha ku dhaafay sidaad u soo qallayn kartaad ugu dadaalaysa sakada ma siin karaa walaalkay haa sakada walaalaha waa la siin karaa edooyinka habaryaraha wixii aan ka ahayn waalidkaaga iyo carruurtaada lama siinayo sakada haddaad dahab badan leedo sakada ka bixinayso waalidkaaga iyo carruurtaada iyo ninkaaga unbaanad siinay dadka kale ehelkaa waad siinaysa laba qof hadday coloobaanoo mid cafiska diida maxaa la yeelayaa adigu cafi waxaad la rooraysaad ku reebi isaga hadduu isagu cafiska diida ama tii aa colowdeena cafiska diido anigu waan ku cafiyey dheh adduun iyo aakhiraba hadday tidhaahdo anigu waan kugu dhegana oo kumaan cafiyin qofkaa yeelkii waaba laga yaaba cafiskii ilahay inuu ku waayaba laakiin adigu iska reeb horta wa khayruhum albaadi'u bisalaam laba qof hadday coloobaan waxa khayr badan buu nabigu yidhi ka intuu ka kala u yimaado ku idhaahda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta ku bilaabee gidaarka jeriya sadaqada xoolaha agoonta ma laga bixin karaa maya qaadhaan dacwadeedna ha ka bixinin qaadhaanka martidana ha ka bixinin qaadhaanka tolkana ha ka bixinin xoolaha agoontu way u qofulayin iyaga unbaa lagu bixin karaa cid kale wax kama cuni karto oo sadaqa lagama bixiyo qofka iyaga wax la cuna iyaguna wax way la cunayaan wa in tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum laakiin qof aan waxba ku tarayn oon aqoon u haynin oon awood u haynin oon adduun siinayn iska ilaaliya xoolaha agoonta ha siinina waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan ma iibin karaa haa waad iibin karta hadday xalaal yihiin oon doofaar ku jirin oon khamri ku jirin oo aanay jidhka caddaynaynin oo timii la isku dheeraynaya aanay ahayn oo ciddihii la gashanaya aanay ahayn wixii sanka la yskaga mudaya aanay ahayn waxaa gaalada dhaqanka oo ah ee xaaraantaee dhibka jidhka ku ah kaa lagama baacmushanayn laakiin wixii xalaala waa laga baacmushanayn karaa dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo cafis iyo cisi allahayna siiyo cudurradana allah inaga dulqaado inta bugta caafimaad allaha siiyo inta carruurlaan ka cabanaysa carruur barakala allaha siiyo inta carruur lana allaha u barakeeyo